السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جانالك مركز سو دواده أدي هذا ومحسنتين muuqaalkan waxaan rabaa inaan idin kula wadaago wasiirka amniga gudaha Mareykanka oo ciidamada ICE ay hoos yimaadaan wasaaraddeeda ayaa shalay Congress-ka looga yeeray. Su'aalo kulul ayaa la weydiiyay oo la xiriira qabqabashada dadka ay muwaadiniinta Mareykanka ah kuwa ciidamada Mareykanka u soo dagaalamay oo la masaafuriyay. Arrimahaasi oo idil ayaa wax laga weydiinayay. Su'aalihii kulul oo xubnaha dimuqraadiyiinta ay weydiinayeen darteed kulankii dhanba waa ay ka cararto waxay tiri meeting ama kulan ayaan waxaan ku leeyahay aqalka cad waxaana la ogaaday markii ay baxday kadib in kulankii la kansalay. Haddaba su'aalihii ugu muhiimsanaa ee la weydiiyay maxay ahaayeen ayaan halkan idinkula wadaagi doonaa. Madaxweyne Trump oo wajiba gabax kala kulmay aqalka sanadka ee gobolkan Indiana oo aan ku noolahay kadib markii uu ka doonayay in 9 xubnood oo aqalka wakiilada laga soo doorto Congress-ka Mareykanka oo 7 kamid ah ay Republican ahaayeen 2 dimuqraadiyiinta in labadaasi dhinaca Republicanka loo wareejiyo sidii Texas ka dhacday oo kale laakiin aqalka sanadka ay diideen xitaa madaxweyne ku xigeenkiisa ayuu u soo diray gobolkan Indiana. Arrintaasina waan idin la wadaagaya. Qaraxiskii Trump oo socdo Epstein Files xubnaha ku jira dimuqraadiyiinta ee ku jira guddiga la xisaabtanka dawladda ayaa maanta waxa ay soo bandhigeen 19 sawir oo kamid ah 95,000 oo sawir oo Gmail-kii Epstein laga helay. Waxa ku jira marka qaar kamid ah sawiradaasi Trump oo gondom uu sawirkiisa ku dhagan yahay iyo sidoo kalena isagoo habla la sawiran inkastoo wajigooda la qariyay iyadana waan idin la wadaagayaa qaraxiskaasi balse marka hore soo dhawaada. Amniga gudaha Mareykanka Christina oo wasaaraddeeda waxa hoos yimaada hay'ado kala duwan oo ay kamid yihiin ciidamada ICE, ciidamada xuduudaha ilaaliya, hay'adda maareynta masiibooyinka iyo hay'ado badan oo kala duwan ayaa wasaaraddeeda hoos yimaada. Marka shalay Congress-ka ayaa looga yeeray guddiga la xisaabtanka dawladda ayaa su'aalo weydiinaya la xiriiray qabqabashada iyo masaafurinta dadka Mareykanka ku sugan. Su'aalihii la weydiiyay waxa kamid ahaa in ilaa iyo 170 qof oo muwaadiniin Mareykan ah ay ciidamada ICE ay xireen intii howlgaladan ay wadeen waxaana marka xubnaha dimuqraadiyiintu ay ka dalbanayeen in shaqadan aysan u qalmin oo aysan ka soo bixi karin isla markaana ay iscashiso haddii kalena xilka qaadis lagu soo oogi doono. Waxa sidoo kale jirta in ay masaafurisay xildhibaan ayaa waxa uu weydiiyay ma masaafurisan ciidamada Mareykanka horey ugu soo dagaalamay isla markaana shaqada ka fariistay. Arrintaasi maya ayay tiri. Markaasi kadibna qadka Zoom-ka ayaa waxa ku jiray nin asal ahaan Kuuriya ka soo jeeda laakiin isagoo 7 sano jir ah ay wadankaasi ugu dambeysay waxaana ciidamada Mareykanka uu u soo dagaalamo ciidamada Mareykanka ayuu ka tirsanaa gaar ahaan 1989kii ciidamadii Panama ka dagaalamay 2 xabadood ayaa ku dhacday. Marka horaantii sanadkan ayaa ninkaasi lagu celiyay wadankiisii Koonfur Kuuriya. Sababtuna waxay ahayd ninkan sida muuqata waxa uu lahaa green card markii uu ciidamada ka fariistay kadib 9 ayaa la xiray kadib markii uu darooga iyo qamri iyo uu bilaabay. Markaasi kadib qofka haddii la xiro wadankan dhalashada ama baasaboorka ma qaato. Marka wax loo muuqata in green cardkiisa uu ka dhacay markaasi kadibna sidaasi lagu celiyay. Marka waxa uu yiri qof 2 xabadood ciidamada Mareykanka dawladda Mareykanka dartii ay ugu dhacday oo naftiisa u huray in aad masaafurisaan oo wadan oo loo masaafuriyo waliba 7 sano isagoo jira laga soo waday arrintaasi suuragal ma tahay. Waxa sidoo kale yiri waa inaad u mahad celisaa askarigaasi waa ay qaadatay waxaana sidoo kale uu yiri waxaan ka doonayaa inaad gacan ka geysato sidii askarigaasi dib loogu soo celin lahaa Mareykanka kiiskiisana aad eegto. Markaas kadib waxay tiri waan eegayaa kiiskiisa laakiin waxay tiri qof kasta oo wadankan sharci darro ku joogo isla markaana sharcigiisa aan u hoggaansamin waan masaafurinayna. Marka ciidamo Mareykanka hore ugu soo dagaalamay ayaa la masaafurinaya. Hadda ka hor waxaan sidoo kale hore muuqaal u daawaday nin asal ahaan Kenya u dhashay oo isaguna ciidamada Mareykanka u soo dagaalamay saasoo kale in Kenya lagu celiyay. Waxa jirta hadda sidoo kale maalmihii u dambeeyay waxaan arkayay askar hore ciidamada Mareykanka uga tirsanaan jirtay oo qaba haween wadamo kale ka soo jeeda ayaa balamo green card oo lahaayeen markii ay tageen in inta la qabtay la xiray iyagana ilaa hadda qaarkood ay wala xiran yihiin. Marka su'aalahaasi ayaa la weydiiyay. Marka intii su'aaluhu ay socdeen ayaa waxay tiri waan baxaya aqalka cad ayaan aadaya waxa jira in guddi loo xil saaray isbedel lagu sameeyo hay'adda maareynta masiibooyinka ee FEMA marka talooyinkoodii ay soo gudbinayaan sidaas darteed waxaan aadaya aqalka cad si aan kulankaasi u shir gudoomiyo. Markii ay dhaqaaqday kadib ayaa gudoomiyihii guddiga xubnaha su'aalaha weydiinaya ee Congress-ka oo la yiraahdo Benny Thompson oo dimuqraadi ah waxa uu yiri
oo waxaan ogaanaba kulankaasi in la kansalay marka carartaa ayaa ka dhacday su'aalihii markay u adkeysan waysay wasiirka amniga gudaha kulan kale ayaan aqalka cad ku leeyahay tiri wayna baxsatay sida muuqatana kulankaasi waa la kansalay waxay u muuqataa inay xitaa ogeyn maxaa yeelay la taliyaasheeda ayaa gadaasheeda fadhiya haddii kulankaasi la kansalay iyaga ayaa loo soo sheegay iyaguna waa ay la wadaagi karaan marka inay carartay oo su'aalahaasi la weydiinayo kulkulul darteed ay ka carartay ayayna u muuqataa marka bal su'aalihii la weydiiyey bal wax yar ila daawada iyo qaababka ay uga jawaabtay inta badanna waa ay difaacday howlgallada ay wadaan iyo masaafurinta waxaa xitaa la yiri waxaad sheegteen inaad masaafurinaysaan dadka dambiilayaasha kuwa ugu xun laakiin muwaadiniintii Mareykanka ayaad xiraysaan oo aad dhibaataynaysaan oo maalmo iyo saacado aad haynaysaan oo xabsi aad geynaysaan marka bal su'aalahaasi siday uga jawaabtay Secretary Noem, you lie and you lied to the American people. I will be including into the record an article by ProPublica from October 16, 2025, entitled, "We found that more than 170 U.S. citizens have been held by immigration agents. They've been kicked." There's nothing smiling about U.S. citizens. I'm sorry, that's very inappropriate. Let me continue. They've been kicked, dragged, and detained for days. And I urge you to reconsider resignation because I've taken the first step towards your impeachment and I've called on the Judiciary Committee to open an investigation into your lawlessness. Madam Secretary, your incompetence and your inability to truthfully carry out your duties of Secretary of Homeland Security, if you're not fired, will you resign? Sir, I will consider your asking me to resign as an endorsement of my work. Thank you very much. How many United States military veterans have you deported? Sir, we have not deported U.S. citizens or military veterans. I don't believe you served in the military. I haven't either, but I think you and I can agree that as Americans, we owe everything to those who have served our country in uniform, particularly those who have served in combat. Do you agree with that? Sir, I believe that people that are in this United States that are citizens have legal status here. Madam Secretary, we are joined on Zoom by a gentleman named Se-Jun Park. He is a United States Army combat veteran who was shot twice while serving our country in Panama in 1989. Like many veterans, he struggled with PTSD and substance abuse after his service. He was arrested in the 1990s for some minor drug offenses, nothing serious. He never hurt anyone besides himself, and he's been clean and sober for 14 years. He is a combat veteran, a Purple Heart recipient. He has sacrificed more for this country than most people ever have. Earlier this year, you deported him to Korea, a country he hasn't lived in since he was 7 years old. Will you join me in thanking Mr. Park for his service to our country? Sir, I'm grateful for every single person that has served our country and follows our laws. Can you please tell Mr. Park why you deported him? Every one of them needs to be enforced. But you understand that many veterans struggle with PTSD, many veterans struggle with substance abuse challenges. This man took 2 bullets for our country. You have broad authority, by the way, as Secretary, to issue humanitarian parole, to do deferred action. Will you commit to at least looking at Mr. Park's case to see if you can help him find a pathway back to this country that he sacrificed so much for? I will absolutely look at his case. I have to actually leave this hearing early because the FEMA Review Council is giving their report today on suggestions for changes to FEMA. Thank you for not taking your foot off the gas. I have to co-chair it, but I will be leaving soon. I understand on good information that the FEMA Council meeting was canceled. sidoo kale aqalka cad ee madaxweyne Trump ayaa waxa ay beeniyeen warar soo baxay oo sheegay in wasiirka amniga gudaha laga yaabo Trump inuu xilka ka qaado sabab la xiriira mid kamid ah shaqaalaheeda in xiriir hoosaad shukaansi ay wada lahaayeen Trump arintaasi waa uu beeniyay wuxuu yiri waan ku faraxsanahay Kristi Noem iyo sidoo kale shaqada ay hayso wararkaasina waa been abuur arintaasi haddii halkaasi aan ka gudbo gobolada dimuqraadiyiinta iyo kuwa Republicaanka waxa ka socdo in xubnaha labada dhinac ee Republicaanka ama dimuqraadiga ah laga soo turto goboladaasi in mid waliba gobolada Republicaankana ay wada Republican ka dhigaan kuwa dimuqraadiyiintana ay dimuqraadi ka wada dhigaan Texas ayaa bilaabay oo maxkamadda sare xitaa ay u ogolaatay toddobaadkii la soo dhaafay California ayaa ku xigtay goboladii kale marka waa ay ku dansanayaan gobolkan Indiana oo aan ku noolahay xubnaha baarlamaanka ee labada aqal waxay isku dayeen
9 xubnood ayaa laga soo doortaa aqalka wakiilada gobolkan Indiana marka 7 waxay ahaayeen Republican 2na Dimuqraadi Trump waxa uu yiri labada dimuqraadiyiinta meesha laga saaro 9 kaba Republican ha laga wada dhigo marka xitaa xubnaha aqalka sanadka waxa uu ugu hanjabay hadii sidaasi ay sameyn waayaan inaysan doorashada soo socda aysan soo laaban doonin waa xubnaha baarlamaanka ee gobolkan ee aqalka sanadka ku jira marka shalay cod ayay qaadeen sanadkuna waa ay diideen waxay yiraahdeen labada dimuqraadiyiintana sidooda ayaa loo soo dooran doonaa 7 Republican-kana sidooda xubnaha aqalka sanadka ee gobolkan Indiana waxay ka kooban yihiin 50 xubnood 40 kamida waa Republican 10na waa dimuqraadi marka 9 ayaa ogolaatay 31na waa ay diideen 21 xubnood oo Republican ayaa diiday 10kii dimuqraadiyiintana gabi ahaanba waa ay diideen Trump xitaa waxa uu u soo diray madaxweyne ku-xigeenkiisa JD Vance si uu xubnaha aqalka sanadka ugu cadaadiyo in ay arrimahaas redistrictiga oo dib u calaamaynta degmooyinka inuu gacan ka geysto gudoomiyaha gobolkan oo isagu horay aqalka sanadka uga tirsanaan jireen Trumpna aad u taageero oo la yiraahdo Mark Brown waxa uu yiri koox yar ayaa arintaasi diiday waana ka niyad jabsanahay marka sida muuqato aqalka sanadka ee gobolka Indiana arintaasi waa ay ka soo horjeesteen ugu dambeyntii qarxiskii Trump ayaa wali socda waa tii sharcigii Epstein Files inshaaca laga qaado la soo bandhigay labada aqal ay meel mariyeen madaxweynuhuna uu saxiixay hadda 6 maalmood ayaa ka harsan muddadii loo qabtay wasaaradda cadaaladda oo 19 bishan ahayd in Epstein Files inshaaca ka qaadaan laakiin xubnaha dimuqraadiyiinta ee ku jira guddiga la xisaabtanka dawladda marba xooga ayay soo fasaxayaan toddobaadkii hore waa kuwii soo fasaxay muuqaal la xiriira jasiiradii Epstein oo lahaa oo gabdhaha la geyn jiro ragga madaxda iyo kuwa lacagta loogu geyn jiro waxyaabo la yaab lana lagu arkay laakiin maanta waxay soo bandhigeen sidoo kale 19 sawir iyadoo ay 95,000 ay dhanyihiin sawirada gacanta lagu hayo marka Gmailkii Epstein ay sawiradaasi ay ku jireen sawiradaasi waxa laga dhaxarkayaa Trump oo 6 dumar ah oo wajigooda la qariya la sawiran mar kale isagoo la sawiran haweeney iyo Epstein File oo iyadana wajigeeda la qariyay marna waxa la arkayaa isagoo la sawiran haweeney iyo waliba Jeffrey Epstein oo aan wajigeeda haweeneydaasi la qarin inkastoo aan la ogeyn dumarkaasi waxa ay yihiin waxa sidoo kale jirta in lagu arkayo Bill Clinton Bill Gates Steve Bannon oo isaguna Trump la taliyo ahaan jiray 4 sano hore wadanka maamulayay haddana taageerayaashiisa ugu waaweyn kamida sidaas darteed marka waxay leeyihiin waa la soo wada bandhigi doonaa sawiradaasi oo qarxiska Trump waa uu soconaya xubnaha Republicanku waxay ku eedeynayaan dimuqraadiyiinta in sawirada ay kala xulanayaan oo kuwa Trump dhibaato u keeni kara oo kaliya ay soo bandhigayaan laakiin sida muuqata hadda sawiradaasi ayaa maanta ay shaaca ka qaadeen waxa sidoo kale la arkayaa condom waa taqaanaan oo Trump wajigiisa uu ku sawiran yahay $4.50 ay ku qoran tahay isla markaana waxa sidoo kale qoraal ku qoran I am huge marka howlahayga ayaa weyn ma laga wadaa kulay waxa laga wada ma fahmin laakiin arintaasina Trump wajigiisa ayaa condomkaas ku sawiran $4.50 waa ay ku qorneed marka sawiradaasi ayaa u dambeeyay hadda xubnaha dimuqraadiyiinta ee ku jira guddiga la xisaabtanka dawladdu ay maanta ay shaaca ka qaadeen iyadoo 6 maalmood ay ka harsan tahay muddadii 30 maalmood ee loo qabtay wasaaradda cadaaladdu inay ku soo bandhigto shaaca ay kaga qaado in Epstein Files ka arki doona waxyaabaha ka soo kordha aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiina cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo